adduunka si kasta ugu nicmaysna muuqaal ahaan caafimaad intaad rabta hayso xoolo intaad rabta hayso awlaad intaad rabta hel nabadgelyo intaad rabta hel mansab iyo jaah jago iyo weji intaad rabta adduunka ku dhex yeelo si kasta ha lagaga daba dhaco si kasta ha lagu waaweyneeyo ha lagugu hareereysnaado ha lagu daba yaaco macnaa wax kastoo bini aadamka dhaafihiisa adduunka uu ku hela ka mida hel laakiin maadaama aadan mu'min ahayn wax qiimaa u leedahay bismi illaahi arraxmaani arraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي halkii baan kasii wadaynaa nusuustii aayadihii iyo axaadiistii noo muujinaysay weynanka iyo qiimaha iimaanka haddana waxaan soo qaadanaynaa runtii xadiid oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo muslim oo wariyey oo anas oo maaragtay runtii laga wariyey xadiidkaas wuxuu sheegayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam noogu caddeeyey in maalinta qiyaamaha la keenayo adduunka qofkii bini aadam ugu nicmo badnaay yu'taa biancami ahli dunya min ahli nnaar waxaa la keenayaa qofkii ugu nicmo badnaay adduunka ahalkiisa oo laakiin ahlu naar ah walciyaadu billah markii la keeno ayaa hal mar naarta la gelinaya fa yusbaqu macnaha waxaa weeye sabqatan naarta ayaa hal mar la gelinaya markii la geliyo ayaa laga soo saaraya markaasaa alla subxaanahu casa wajal wuxuu weydiinaa ibnu aadamow weligaa khayr ma aragtay nicma weligaa maku soo martay su-aashaasaa la weydiinaa markaasuu leeyahay laa yaa rabbi weligay khayr ma arag nicmana ima soo maray runtii haddaan in yar dul istaagna xadiidka qeybtiisaas qofkii adduunka ugu nicmo badnaay buu yihi rasuulka sala allahu alay slam xadiid saxiixa muslim kusugan ugu nicmo badnaa laakiin ahli naar ah khalaas marka nicmada wax macnaa ma laha wax alla waxa adduunka midigta lagu saaro lagu makaniyey oo lagu siiyey macno male mar haddayan iimaan ku dul dhisnayn lannahu hal mar oo naarta qofka la geliyo ba ku hilmaama wixii soo maray oo dhan oo nicmaha arrintaan miyaana tusinayna qiimaha iimaanka intuu la egyahay inuu ka qiimo badan yahay waxa adduunka yaallo dhan oon asaga ku xirnayn oo ka weyn yahay oo ka saameyn badan yahay oo ka faa-iide badan yahay soo tusin mayso ficlan qofkii caqli lahu waa wax uu si sahlan uga qaadan karo shayga keliya oo mudan in la tixgeliyo lagu dadaalo inuu yahay iimaanka si looga badbaado dhibkaas allah subxaanahu casa wajalla annagoo weli adduunka joogna oo fursad haysana oo allah inoo sheegay si looga badbaado ficlan xadiidkaas qeybtiisa hore macnahaasay sheegaysaa waa ninkii adduunka wixii jooga ugu nicmo badnaa laakiin mushkiladiis waxay noqotay ahli naar buu noqday ahli naar muxuu ku noqday gaal buu ahaa ilaahay ma rumaysnayn iimaankaas nuurkaas qalbigiisa alla uma gelin subxaanahu casa wajal raxmaddii ilaahay wixii uu maaragtay ku sabab ugu noqon lahay oo uu ku heli lahay lama u imaanin ihtidaa baa la rabaa in qofku iimaanka raadiyaa la rabaa waxaa la rabaa iimaanka qofku inuu maaragtay runtii ou dalbo ou raadiyo ilaahay subxaanahu casa wajal ahlkafa markuu ka sheekeynayay muxuu yihi warabadna calaa quluubihim goorma id qaamuu marka qiyaama la rabaa marka iimaanka islaamnimada alla u addoon noqoshadiisa alla ku xirankiisa ilaahay subxaanahu casa wajal raaligelintiisa in loo soo istaagay rabtaa marka xadiidka qeybtiisa waxay inoo sheegaysaa haddii aan iimaan lahaynin wax kasta oo nicmo lahaayaho inay macno lahayn bal kulligood inay isu bedelayaan maadaama aysan iimaanka ku xirnayn waxyaaba qofka hadhow beri lagu ciqaabo oo ay maaragtay kulligiis masaa'ib ku noqdaan xaqiiqatan qofka adduunka ugu maal badan haddii ilaahay subxaanahu casa wajalla uusan ku xirnayn maalkiisu beri wuxuu ku noqonaya ciqaab cilmiga qofka alla siiyey hadduusan ilaahay uga baqin ousan ilaahay uga dambaynin ousan waajibaadkiisii iyo takaaliiftiisii la imaanin beri qofka ugu horeeyo naarta lagu horiyo noqonaya walciyaadu billah marka xaqiiqatan xadiidka qeybtiisa waxayna tusinaysaa waxa lagu badbaadi karo oo adduunkana lagu badbaadi karo aakhirana lagu badbaadi karo inay yihiin aliimaanu billah xadiidka qeybtiisa kale
wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo ku sheegay in la keenayo min ashaddi innaasi bu'san, dadkii adduunka jooga qofkii ugu ba'siga badnaa, ugu dhibka badnaa, noocyada dhibkao dhan isu keen kii ugu badnaa, hadday jiro tahay, hadday faqri tahay, lama tiri karo. qofkii ugu darnaa xagga dhibka adduunka dadkii joogay oo laakiin ahli janno ah ayaa la keenaya. bal u fiirso, ahli janno in la noqdo waxa weeye maaragtay waxaa ka horeeya in mu'min la noqdo oo ilaahay la rumeeyo subxaanahu casa wajal. marka qof alla rumaysnaay oo alla maaragtay rumaysnaay darteed macnaha ahlu janno ku noqday, laakiin adduunka markii la joogay dhib iyo macnaha waxaa weeye rafaad kii ugu darnaay lasoo kulmay baa la keenaya. markaasaa hal mar jannada la gelinaya. markii hal mar jannada la geliyo ayaa ilaahay subxaanahu casa wajal wuxuu weydiinayaa, ibni aadanow weligaa maku soo martay wax khayra ma aragtay, nicma maku soo martay, macnaha wax dhiba maku soo maray, dhib ma aragtay weligaa, shida ma ku soo martay? markaasuu leeyay weligay ba'sina ma arag, shidana ima soo marin. bal u fiirso, labada bage ama labada warqadood oo iska soo horjeeda oo midna ninka ahlu naarka ah oo kaalka ah suuraynayso, midna ay suuraynayso qofka ahlu jannaha ah oo mu'minka ah. bal u fiirsa intay isu jiraan. kanina hal mar naarta la geliyo ku hilmaama wixii nicmaha, kanina hal mar oo jannada la geliyo wuxuu ku hilmaama wixii dhib uu soo maray adduunka o dhan. marka xaqiiqatan halkaa waxaa ka muuqda qiimaha iimaanka uu leeyahay oo ma garanaysaa iyo weynankiisa iyo saameyntiisa, oo qofkii waayana oo adduunka si kastoo ugu nicmaysnaay masiirkiisa iyo meesha u dhammaanaya ay tahay aakhiro naar ay tahay, naartaasoo hal maroo la isgeliyo wixii nicmo adduunka lagu soo maray lagu hilmaamayo. marka arrintaasuna runtii waa arrin ayadana maaragtay na tusinaysa, xadiidkaas wuxuu aada noo tusinayaa in macnaha waxa weye iimaanka qiimihiisa iyo sarayntiisa iyo weynankiisa iyo ma garanaysaa qiimaha oo u leeyahay qofka bani aadamka noloshiisa. xaqiiqatan war kuma suurayn karno, naska ayaa ku filan. marka intaa ayaan jecelnahay inaan dadka u sheegno oo qof walba maanta uu maaragtay baaraan dego oo ka baaraan dego labada warqadood midda u gelayo. adduunka si kasta ugu nicmaysnaa, muuqaal ahaan ama daahir ahaan si kasta ugu nicmaysnaa, caafimaad intaad rabta hayso, xoolo intaad rabta hayso, owlaad intaad rabta hel, nabadgelyo intaad rabta hel, macnaha waxa weeye mansab iyo jaah, jago iyo weji intaad rabta adduunka ku dhex yeelo, ma garanay, si kasta ha lagaga daba dhaco, si kasta ha lagu waaweyneeyo, ha lagugu hareereysnaado, ha lagu daba yaaco, macnaa wax kastoo bini aadamka dhaafihiisa adduunka uu ku hela kamida hel. laakiin maadaama aadan mu'min ahayn waxa qiimahaad leedaha male. adduunkana mayidaad ku tahay sida aayaadka hore ay noo soo sheegeen, aakhirana mayid adoo ah ayaa haddana waxaad ismudanaysaan cadaabka ilaahay subxaanahu casa wajalla, oo hal mar oo lagu geliyo aada ku hilmaamayso allah subxaanahu casa wajalla, macnaha wixii uu nicmo adduunka midigta kuu saaray oo dhan halkaas maroo lagu geliyo aada ku hilmaamayso. xaqiiqatan haddii caqli jiro, haddii dadnimo jirto, haddii fakar jiro, haddii danaysi jiro, haddii qofku wax isku falayo ousa wax iskuma falo ahayn, waxay tahay inuu hadda intay goorgoor tahay laxadaadba ha kuu hareene, daqaa'iqba ha kuu harto, saacada ha kuu hareen, maalmo ha kuu hareen, asaabiic wixii kuu haray allaa yaqaane, inaad laxdo walba ka faa-iidaysato oo uga faa-iidaysato aad berri uga badbaadi lahayd masiirkaas, isla markaasna aad ku heli lahayd si kastood adduunka ugu dhiban tahay, si kastood adduunka ugu waxla-dahay, si kastood adduunka ugu hooseydo, si kastood adduunka lagu macnaha qiimo tiro indhaha si hoose laguu fiiriyo, macnaha waxaa mar haddaad mu'min tahay allah agtiisa midka ugu sarreeya oo ugu qiimaha badan oo ugu maaragtay runtii loogu jacayl badan yahay, oo allah agtiisa sidaan arki doono ka mudan waxyaaba aan runtii la suuraysan karin oo suuraysigoodu ka weeyaa caqliga bini aadamka. marka sidaa darteed waxaan jecelnahay halkaan aan usoo fadhiistay jamaacatu saadicuun, hadafkeeduna uu yahay in dadka indhahooda lagu soo jeediyo waxa maanta ay hadday helaan ku badbaadayaan oo ay berri ciqaabka iyo carada uga badbaadayaan, maantana ay uga baxayaan dhibka adduunyo iyo macnaha waxa weeye ciriirigiisa. waxaan leenahay iimaanka qiimahaas leh oo saameynta intaa la eg leh
ayaa ilaahay noogu talagalay inaan ku noolaano adduunka, beri toolana aakhiro ula wareegno, allana aan kula kulanno si aan uga badbaadno ciqaabkiisa, una helno raxmadiisa iyo fadligiisa iyo waxa aan ilu arag dhaguna maqal qalbi baadan aadamna aan kusoo dhicin oo ilaahay u diyaariyey qofkii asaga doorashadiisa iyo maarata rabitaankiisa alla uga dambeeya oo alla ku raaca oo alla ku raaligeliya. waxa ilaahay u diyaariyey wax maarata la suurayn kara maahan. ilaahay hana waafajiyo. waxaan leenahay dadka iyagow arrintaas waa arrin muhiim ah. qof walba oo maqla ama arkaaho hoosta ha ka xariiqdo, indhihiisa ha hordhigo, agtiisa ha ku weyneeyo, wax kastana ha ka hormariyo. ilaahay hana waafajiyo. hada wabillahi tawfiiq, wallahu calaa ma aqulu wakiil.